deeqdan lacagta ah oo ay ugu talagashay madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska warfaafinta caruurta ay ka geeriyoodeen wariyaasha Soomaaliyeed ayaa maanta lagu guddoonsiiyay magaalada Muqdisho. Munaasabadda lacagtaas lagu guddoonsiinayo waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta madaxda warbaahinta, xubno ka socday madaxtooyada Soomaaliya, xogahayaha ururka Nusaj, waalidiinta iyo caruurtooda. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada barnaamijkan Cabdullaahi Cuthmaan Faarax oo ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in caruurtan intooda aan awoodin in ay waxbarashada iska bixiyaan ay ka saacidi doonaan. waxaan rajaynaynaa inuu barnaamijkan wanaagsan noqdo mid sii socda intaana ma ahan in ku filan caruurta ay ka tageen saxafiyiinteennii khaaliga ahaa intooda badan sida xaqdarrada ah loo dilay inkastoo dadka la ciidsiinaya ay ku jiraan dad aan gacan sababsan oo si caadi ah u dhintay ama qof walba tii rabbiga ku timaada laakiin dad aan gacan sababsan ayaa ku jira dadka la ciidsiinaya caruurtooda kaliya waxaan ka soo qaadnay wariyaashii dhintay 2017 in la dilay iyo inuu qofku si kale isaga dhintay midna looma fiirin laakiin haddana kuma filna sanadkiiba hal mar in laga soo war doono oo liirada sanadkan hal la ciidsiyo oo lacag loo qaybiyo maadaama madaxdii saxafiyiinta oo dhan halkan ay joogaan waxaan rabaa inaan codsado in intaas wax ka badan loo sameeyo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa caruurta qaar inaanay qoysasku waxbarashada ka bixin karin qaarna caafimaadkooda aan la maareyn karin saxafiyiintu waa dowlad gooni u taagan waxay awoodaan inay goobaha waxbarashada kala hadlaan in waxbarasho free la siiyo caruurtaas sidoo kale isbitaalada ayay kala hadli karaan in kaarar inta loo sameeyo caruurtaas qofkii xanuunsanba si bilaash lagu daaweeyo agaasimaha bariga iyo bartamaha TV-ga Universal Cabdullaahi Xirsi Kulmiye iyo agaasimaha guud ee Goobjoog Media Group Xasan Maxamed Maxmuud oo wadajir halkaasi kaga hadlay ayaa sheegay in ay mar walba diyaar u yihiin garab istaaga agoonta ay ka tageen wariyaasha Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan idin cadeeyo inaad qabtaan waalidiin iyo walaalo idin garab istaagan waa run sanadkiiba mar in la isku yimaado waxa ka fiican in xiriir joogto la yeesho laakiin xaaladaha oo jira daraadood waa dareemi karnaa haddaan isbaranaynaa sanadkii hore isbarashay ahayd waxaan u mahadcelinaa tiim ka soo shaqeeya waqtiga adag geliyay 100% waa mahadsantihiin marka waxaan ballan qaadaa aniga xasan ahaan oo halkaan ka ballan qaadaa inaan ka shaqeeyo waxbarashadeeda macna caruurtaas database marka maadaama aan xog haynin sax hadda go'aan ma dhihi karna hebel iyo hebel aan qaadano marka Cabdullaahi iyo Balaag iyo waxaan ka codsanaynaa inay database maadaama ay hayaan inta xogtaas nala soo wadaagaan oo fariisano waa wax aad u fudud inaan helno waxbarasho free ah oo aad min bilow ilaa dhamaad ilaa jaamacad qofka baxo bixi karo aad waxbarashadiisa heshaan. agaasimo ku-xigeenka warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag ayaa sheegay in caruurtan ay heli doonaan goob caafimaad iyo waxbarasho xafiis ahaanna ay xoog saari doonaan. waxaan rabaa inaan raacsiiyo agaasimayaashii ugu horeeyay ee hadlay ee Cabdullaahi iyo Xasan iyo Cabdullaahi Xirsi iyo Cabdullaahi Cuthmaan Faarax iyo waa hal talo oo muhiim ah oo ilaa hadda qorsheed aan ku guda jirno oo ah muhiimadda hal bil ama hal sanadkii mar inta loo yimaado caruurta in wax lagu taro ama maaragtay laga bixiyo hadafkeena ma ahayn innaga ka madaxtooye ahaanka warfaafinta xafiiska madaxweynaha waxaan ballan qaadaynaa hawl waliba ee caruurtaasi yaryar ee agoonta lagu garab siinayo hadday tahay mid waxbarasho hadday tahay mid caafimaad wixii kaalinahay nooga aadan inaan qaadano wixii garab istaagana inaan la garab taaganahay waayo waa caruurteennii biri annaga booska ii sheeg maxaa tira caruur baan dhalnay annaga tagi karna wixii aan jidaynaa rabnaa miraheeda inaan biri aan guranno marka waxaan inii ballan qaadaynaa kan xafiis ahaan waxaan inii ballan qaadaynaa hawl kasta ee suxufi Soomaaliyeed ama cunug suxufi Soomaaliyeed uu dhalay lagu garab siinayo inaan garab istaagno waxaan aaminsanahay saxaafaddu inay tahay Soomaaliya marka loo eego hay'adaha ka jira ama nidaamada ka jira saxaafadda inay tahay waxa ugu dhow ee midaysan ee saaxiibka ah ehelka ee hal firqa ee hal position lagu soo hagaago waana arrin aan bogaadinayno waana arrin aan isleenahay waa garab taaganahay hal midna inaan cadeeyaan rabaa hawl kasta ee la qabanayo ma ahan sidii ugu wanaagsaneed inay u dhacayso wax kasta waa bilow waxaan rabaa inaan mahad celiyo bilowgan fiican ee saaxiibada hawshan soo abaabulay ay sameeyeen xafiisna aan qaybta ka nahay inay hawshan tahay bilow isku day ah oo sanadii labaad Ilaahay nagu guuleeyay ee noo suurta gashay muhiimadda ma ahan iida kaliya san hore u sheegay muhiimaddu waa in caruurteenan bahda saxaafadda ay ka geeriyoodaan ay helaan waxbarasho oo dhameystiran oo free ah waa inay helaan goob caafimaad ay ugu hagaagaan oo free ah waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo ay xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ay ciidsiiyaan
caruurta agoonta ah oo ay ka geeriyoodeen wariyayaasha Soomaaliyeed. Maxamed Cabdiqaadir Jiiro Sharmaake, KNN Muqdisho.